magacaygu Jimcaale Maxamed Axmed oo jooga tuulada Toon gaar ahaan deegaanka Kadacawl daadada haddaan idin sheegana waa 20 jir waxaan ka shaqeeyaa xoolaha ayaan raacaa gaar ahaan waxaan raacaa geela marka aad soo gasho inankii doobka ahaa iyo inankii dhisnaa reeraha way kala duwan farq weyn baa u dhaxeeya inankan doobkiisa waa tartiib geeli hor seexanaya wuxuu jiiday qof magaranaysa meelahaas uu ciyaar gudaya fakaag badan buu leeyahay meelahaas uu ciyaar gudaya ninkan isagu xaas kale gabadhiisu la joogaya familkiisu ayuu dhex joogaya gabadhiisa wax walba u diyaarinaysaa cuntadii iyo afurka soo diyaarinaysaa farq weyn baa u dhaxeeya magacayga oo ah Cabdiladiif Deeq Cumar oo da'daydu tahay 29 jir oo ku dhashay magaalada Hargeysa oo kaga nool xaafadda Boqoliyo Kotonka noloshayda guurka ka hor waxaan soo qaban jiray meelahaas iskaga ciyaari jiray kubadaha iyo xawaasaas iskaga ciyaari jiray markii koobaad iskuulka ayaan baran jiray markii labaad kubadda iska soo ciyaari jiray markii saddexaad hooyadii baan la noolaa markii afraad farsamada gacanta ayaan haddana ku biiray oo ah aluminium marka hore subax markaan soo tooso waa foldaqanaya salaada subax markaan tukado kadib xoolaha ayaa loo kacayaa marka xoolaha oo marka laga guro waa la lisayaa kadib markay dadkii quraacdaan hawshooda ay ku fuufeen maqribka la isku sooyinay iyadoo qof walba wixii loo diray uu keenay haddana waa la oodayaa waa laga seexanayaa ardayga loo seexanaya dab baa loo shidayaa xoolaha iyo waraabaha laga ilaalinaya habeenkii inta baad bilaabmay halkan marka la joogo ayna keenantu markay gaadhaan waqtigii iskuulsanayeen
kadib dadku wuxuu inaan ku xusooda eegtaadeenan oo xilli dhex marada oo isticmaalaan kadib markii daan inta anagu isbaranay aan xilli la yeeshay kadib jacayl la yeeshay ayadana dee waxay noqotay waqtigii ay guursaneyd bay gaadhay anna waqtigii bay gaadhay sidaa awood baan isku soo xulanay halkana dee marka daada la gaadhay la guursaday sidaa la jigad baan dadka iska calmanay sidaa noloshooda wax uga bedela Najmo waxaan isku baranay Facebook ayaan iska baranay waanu kala fogeyn waxaanu kala fogeyn gabilay bay iyaduna joogtay aniguna waxaan joogay Hargeysa marka noloshayda waxa suurta galiyay Facebook markii dambe labadayadu baan isku tagtay jirnay anigu gabilay baan mar ugu tagi jiray iyaduna gabi Hargeysa igu iman jirtay intii hore marna kuma fikirin laakiin markii dambe aan isfahanay qofku waxa weeye labada qof markay saxjabiyaan weeyaan ya labadeeduna waan iska helay jacayl meeshu inday markaa waxa ku fikirna labadeeduna raadisay sheekada wallahi waan wada sheeksanay ilaa muddo 5 bilood adigu bishii lixadeeda noo soo galaysa ayaan markii dambe waqti ku wada qaadanay inaan guru dhisno inantii wad ka soo farsanaa inanta meelay wad ka soo farsanaa waqti baa qoonayaan inta reerkooda ayaguna waqti baa la qabsanayaa oo la balamayaa reerkii inantu geed baa ku bixinayaan intii geed bay wadayaan geedka waxa la keenayaa wixii dhaqanka Soomaalidu lahay ayaa la keenayaa cawsaskii alooladii kabdihii waxa la keenayaa markaa kadib ayay imanayaan qoladii inanka ku socotay inanku wuxuu wataa caaqilkiisii wataa iyo odayaashii inanta reerkooduna waxay sii diyaarsanayaan waalidkii inta bixinayay aabaheed iyo faamiligeed oo dhan deh ayaa lasii diyaarinaya meesha lagu kulmayna waa geedka markaa kadib ayay imanayaan qoladii inanku waa la is arkaya waa la is gacan qaadaya waa la is salaamayaa waa la soo farsanayaa dadka meesha isugu yimid badhna hore isku yaqaana badhna markaas ay isbaranayaan halkii horta waxoogaa barashaba la geliyaa markaa waa la isbaranaya intii aan isaqoon kuwii isgaranayana dee waa isgaranayaan intii aan isaqoonna way isbaranaysa ma garatay ninkana waa sheekii waddanka sheekh axmed jiilaani sheekh cali curay baa la yidhaahdaa alxamdulilah rabbil caalamiin ninkana waa garanaysaan waa caruuskii isaga waa noo muuqataa ninkan maxamed cabdullaahi xuseen baa la yidhaahdaa iib gacanta waxaan ku guuriyey gabadha la yidhaahdo hodan maxamed axmed oo wilaayadeedii aniga la igu wareejiyey guursadii zawjtuka waan ka xatuka calaa maa amara allahu tacaala hooda bin axmed bin maxamed zawjtuka ka xariya zawjtuka wuxuu dhiibayaa gabaatigii iyo yaradkii ayuu dhiibayaa waana isinaal odhanaya inantii iyaguna xodhanaya waa idinka guddoominay markaa kadib ay fadhiisanayaan lacagtu waxay tan waad sheegaysaa waxaad oranaysaa intaasi waa gabaati intaas waa yar haddii meesha magaalada lacag baa la bixinayaa waxaa la odhanayaa intaasoo yarada intaasoo gabaati haddii kalena geel baa la isku ballan qaadaya waxaa la odhanayaa geel waa yarad gabaatigina waa sidee markaa kadib lacagtii loo sheegay ee la yidhi intaasan gabaati intaasan waa yarad gabaatiga ayay ka soo celinayaan lacag yarad isagoo wax la kala guddoontay laakiin gabaatiga ayaa laga soo celinayaa lacag tay gartaan ayagu kadib markaa iyaga loo celiyo waxooda waa la is salaamayaa waa la kala kacayaa hawshooda gelayaan
marka xoolaha la bixinayo inantii marka la bixiyay inankii loo meheriyo dee waa inantii waa inan doonno reerkoodii joogto marka haddii baydankeeda leeyahay dee la isla garto ee reerkan dee inanku yahay oo haddii la yidhaaho dee wax isla helo markaasaa inantii haddana lasoo wareejinaya dee ay xilkii saartay oo la meherinaya sharcigu u meherinaya hadday doontana iyadii baa goojoogaho wixii ay qabsato lagu meherinaya geedka dee wuxuu kordhinayaa laba reer oo dee iswajahay oo maaragtaa dee labaduba magac leeyihiin oo isa siiye carruurtii magaca weeya geedku sidaasu qiime u leeyahy xooliina waa lagu bixinayaa intii kale ee u timee faamigii ayaa qaadanaysa lacagtii wax reerkii way u harayaan oo dee inantii baa lagu hagaajinaya hadhowna lacag baa la keenayaa oo reerkii loo geynaya haddii baydankeeda leeyahay dee lagu soo qurxiyo marka waa kaa qiimahaasuu leeyahy magac buu leeyahy markii aanu go'aansanay inaynu najmo isguursanno tallaabadii koowaad aan u qaadnay waxay ahayd aan isla tagno markii aan isla tagnay xaafadahan soo ogeysiinay markii dambe ayay labada waalid isku yimaadeen labadii waalid isku yimaaday ayaa gaaya siiyey badan baan fadhiyey way ku wada dhasheen carruuraha dhowr iyo 10 carruuraha ku dhashay si wanaagsan oo sidaasuuna shuba gugudee markuu sheexo aadado xoolaha caanaha la daadiyo geel wada dhalo ayuu ahaan jiray imakana ilaahay waa la sugayaa lagama quusan xooliyo raxmaadku way yaraan roobku markuu doorto qiimiga faa'iido badan buu leeyahay doogga ayaa soo baxaya xoolo baa intifacsanaya dadkana way sii intifacsanayaan caani bay ka maalayaan cadkii bay ayay ka cunayaan way iibsamayaan waxaas ka faa'iidayaan roobka haddana roobku diina ay marka abaaru dhacaan geedi baa la gelayaa abaaru marka dhacaan geedi baa la gelayaa habqanka dadka badanaya qofkii noloshiisa waxay galaysaa khatar bay galaysaa xoolo baa ka xumaanaya qaar way dhimanayaan qaarna way bakteeyaan وقاعدشون قاعدش مركب بختي مثل غاسة كل بيميل بدو جورسة كل بالكروب كده بدو جورسة ساد جدوج ساد هدو ينتهي الهرب كشدو وين مرة شبه كقول عليه هدي الهرب حال كوش ولا كوش رئيسة إلى بعد كم هالناس أوكي مالك والله وهول بدنه والله هول بدن أنا قاس مين كيف سننا ها كم ورنوي كم كور كم كور هذا كور حاجة بهذه الست حاجة يا كسر كدارت ها كسر كدارت كور لا تكفي ها كم عسى والله وراح معانت معه
meherkii ka bacdi haddana arooskiiba ayaa la galay arooskii guridhigii guriga wixii agabkii guriga laga soo dhigay sariirtii hurdadii may sariirtii fadhigii allah mustacaan weelkii ka waran falaasadaan in iibsana asawirka yaa intaan kaa siiyo mayda qiimaha ma noqonaysa hadaba iska dhig qiimaha ma noqonaysa iska dhig shanta ku dar meeduu shanta ku dar aanay waxay tahay alaabta soo maaha alaabta hadday noqoto hurdo iyaga keenay weelka iyaga keenay hooyadina waxay keentay iyagu waxay keenay weelka iyo marinkii hooyana waxay keentay fadhigii fijaanadii aad qasaalada hadday noqoto hadday tv noqoto hadday sabiib noqoto wax walba dee aduu xagga hooyintaas ka haaye kabacdi markii farxadda la wada qaatay hawshu dhammaatay alxamdulilah maanta gurigeyga baa deganahay manager taashku ba waxa horta ugu muhiimadda ugu weyn waa isaga ayaa arooska dhani ahmiyadda uu leeyahay toobkuna waxay doonaysaa dhib badan wallaahi loo maro loo xidhaa waa isaga kabacdi hadduu isaga yahay toobkii kolba midba midku ka quruxda badan yahay baad arkaysaa midba midku kasii de aduu foolxun yahay haddana kasii qurux badan yahay ayaad arkaysaa haddaad arkaysana dee kolba qof walba dooqi maanta dooqaygu kolkii hore aanu toob baan doonayay haddana waan iska bedelay wii cajibin waayey haddana dirac baan doortay haddana diracii waan iska bedelay dirac kalaa markii dambena doorto dooqaygu ugu dambeyntii ku dhaco oon soo xidhay de markaa ka saasaan ahayd markaan arooska u diyaargaroobay allah mustacaan markii ugu horeysay suudka ayaan asxaabtayda la soo iibiyeen asxaabtayda la soo iibiyeen waan israacnay meeshii baan ka soo wada dooranay waan soo qaadanay diyaarinta aroosadda berigii hore iyo imiga isku mid maaha farqi weyn baa u dhexeeya kolkii hore waxay ahayd dadkii hore aroosyadii hore sida loo dhigi jiray xinayrun baa faraha loo marin jiray qasli yar iyo xubba loo marin jiray markaasaas waa arooska ku kab jiray iyadoo labadii qof iskursanaya farxadda asaas ku qaadan jireen imigana farqi weyn baa u dhexeeya iyadana imigana koofeer baa la tegaya waxa internetada lagala soo baxo ayaa la samaynayaa hadday weji noqoto hadday xilli noqoto hadday timo noqoto hadday dhar noqoto hadday kaba noqoto wax walba waxaa internetka lagala soo baxa la samaynayaa koofeer baa la tegayaa
markii dambe aan tegey raislaha keligay ayaa raislaha diyaargarowgii raislaha lahaa ayaan kursiga ku fadhiistay isaguna waa iga xiiray raislihii markuu iga xiiray ayuu si aad iyo aad u quruxsan igu xiiray raislihii aad iyo aad baan isku daawaday ayuu aan iska bogtay day quruxdaydii waxay u jecel yihiin waa la soomayaa ramadaanka waa la soomayaa waxaa la badinaya qur-aanka la badsanaya marka sidaasay u jecel yihiin dadku waxba u dhimi mayso hadda wuu samaysan karaa laakiin dee ruuxiisa oo ruux islaama maaho soomi maayo oo adkayn maayo salaada iyo soonka iyo haddaa la yidhaha ma adkaynayo markaa sidaasaa loo yaraa mooyaane sidan kale waa caadi loo diyaar garoobaya waxaa la soo ururinayaa aqal weyn baa la dhisayaa shaqaala imanaya wuu ka shaqaynayaa asxaabtii o dhan baa imanaysaa iyo wixii faamiliya ayaa imanaya aqalka baa la dhisayaa aqalka maalinta horeysa la dhisayay udbii baa la taagay udbii markii la dhamaystiray saaxiibadii baa sugeen asxaabtayda dhan baa timid ayaa kasoo qayb gashay dhismihii arooska qof walba wuxuu qaban karay ka qabta arooskii aqalkii arooska markay bilaabeen udbii ayay bilaabeen udbii markay ay dhamaystireen dhan walba ka taageen haddana waxay bilaabeen dushii sare ayay ka bilaabeen xakabkii wixii bay saareen intii aqalku ahaayee udub iyo dhig iyo wixii uu lahaa o dhan baa la isku dhamaystiray maalintii hore haddii rabadaanta ka hor arooska ku dhawaayo dareenka wuxuu noqonayaa dee kole aduu niyad jab ku dhacaya waxaan doonayaa in arooska si degdeg u qabto sidaa aweed baan doonayaa in aan marka intaan rabaan soo galaan farxad badan dareemo
xafladda arooska waxay u dhacday si wanaagsan bartan loo soo dhaweeyay marka hore markii aan soo dhaweynay meeshii barxaddii lagu soo dhaweynay la sameeyey todobtii loo xiray leerkii lagu xiray la qaabeeyey nidaam loo artificial laga dhigay ayaan anaguna naan nimid si wanaagsan baan loo soo dhaweeyay baabuur baan lagu soo galbiyey xaafadda la noo riday markii xafladda loo riday arooskii meeshii barxaddii lagu soo dhaweynay ayaan baabuurtii ku wareejinay guriga ugu qabtay markii dambana waxay ahayd hordheelkii ayaa qaali igu noqday markuu qaali igu noqday ayaan lacagtiisii aan siidhida guri iskaga dhigo oo lacagtana iska isticmaalday oo nolol maalmeedkaaga ku kafay waxaan u go'aansanay si inay islaamo oo quraata ay ciyaaraan buraanburku waa markii inanta hooyadeed soo galayso joogto ay inantu soo fadhiisato weeyaan heesihii waxa dambe inantu ku ciyaarsan oo marka dambe odagaygu soo galo midaan ka xasuustaana waxa weeyaan ahoobey sida loo kacay sahal maahe tasugahinay najma soo soco saas ahayd waan la soo dhaweeyay si wanaagsan loo soo dhaweeyay sameecadii baan loo shiday nidaamkii kale aroosku lahaa habkii kale loo farsameeyay ayaan loo shiday barxaddii arooska lagu soo dhaweeyay sacabka baan loo tumay mashxaradii baan loo tumay qaab kastoo dee aroos meel ka dhaca wixii loo qaban lahaa dhammaan loo qabtay si wanaagsan loo soo dhaweeyay marka dambana waan fadhiisanay salaantii baan dadka ka qaadnay si wanaagsan baan arooskii dib u bilaabmay wuu socday salaantii markaan dhamaystirnayna arooskii sidii buu ku socday xafladdiina sidii ku soo dhamaatay
hadiyaddu aad bay fara badnayd yaa fitaanay lahayd kaadooye lahayd fadhi bay lahayd dee maasha allah aad iyo aad bay wallaahi hadiyad u ballaadhanahayd marin hadday noqoto waa inankii reerkooga oo iyagaa inanta hadiya ahaan uga soo dhigo u keenaa hadday diiqada noqotona inanta hooyadeed ayaa reerka inanka hadiya ahaan uga dhigto u keentaa iyadoon hadiyaddii naloo keenay hadiyaddii aan kala gudoominay ay korontadii naga baktiday waxaanu qabsan lahayn korontada aawadeed oo aanu qabsan lahayn markii korontadu go'day wallaahi oo inii xoogaaban ka xumaanay intii asxaabtii ciyaari lahayd dadkii noo shaqaynaya ciyaari lahaayeen korontadaa go'day dacwo xoogaa aad ugan uga xumaanay laakiin intii dambe waxba kamaan xumaan calool xumana nagama yahayn waanu iska sii daynay dadkiina sida ku kala dareereen wallaahi habeenkii iigu farxadda badnayd bahayd hortaa iiguna qosolka badnayd iiguna dee dadka badnayd dad badan farxad la qaato dad badan meel wada joogno dad badan wada ciyaarno macal hooyaday gebi habeenkii iigu farxadda badnayd bahayd intaan sheegnay oo kale imika aan sheegi karin ta kale markii aroos ku dhacay uu dhacay xafladdu si fiican bay u qabsantay dadkoo dhan ku wada faraxsan aniga si farxad ma dareemay dadkoo dhan la mid baa farxad bay dareemay dadkoo dhan farxad ay wada qaybsan marka arooska si farxad ku dhamaaday jawigan aan maanta joogo iyadoo rabadaana oo guursaday aad baan ugu faraxsanay maadaama aan guursaday rabadaan ay soo gashay in badan aan ku dadaalay inaan rabadaan taariikh ka horreysay waana ii dhacday adigu wax yar bay iga soo gaadhay rabadaan waanan intii ka soo qayb gashay arooskayga intii kaleba waan mahadnaqayaa dadkii oo faraxsan aniga wada faraxsan boorsada jeebkeedaan ku riday tirhanay talabaadeen marka qofku inaan ku doob yahay waxyaabo badan oo ka maqan markuu guursado noloshiisa oo farxad ku soo kordhinaya ayuu dareemaya gabadha oo shaqaynaysa alaabta oo sidanaysa markasta way ka farxinaysaa waxaana u keenaysaa wax noloshiisa farxad kaliya mar walba iyo wax ku farxi laabay mar walba oo samaynaysaa si ay noloshiisa happy uga dhigto okay so
rabadaanta iyo ayaamaha caadiga wax badan ay ku kala gudbisan yihiin ayaamaha caadiga waqti saddex waqtiyo qura cunto la sameeyaa saddexda waqtina isku mid ah waa subax iyo duhur iyo habeen saddexda waqti isku mid maaha marka dawaa la yar nasanaya laakiin rabadaanta noqotay rabadaanta badan hadii casuumad noqoto hadday dad badan oo idin afrimaad noqoto hadday dad badan oo idin cashiimaad noqoto rabada wax la soo iibinayaa hadday heed noqoto hadday garow noqoto hadday arabaqi noqoto hadday shuuro noqoto intaas baa la soo iibinayaa horta mid habeen suxuur laga dhigayaa cashada hadday noqotona bariis iyo baastideen baa la kala bedelayaa afurka ay ku kala duwan yihiin afurka sharaabyada baa kala nooc sameeynaa la doono hadday shamaam noqoto hadday cambo noqoto hadday saytuun noqoto hadday keeni laaqaya caadiga noqoto hadday biyo qabow noqdaan rabadaanta iyo maalmaha kale isku mid maaha الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bisha Ramadaan qiimaha agteeda ka leedahay aad iyo aad buu aniga igu qaaliyahay marka koobaad waan cibaadaystaa marka labaad quraanka ayaan akhriyaa marka saddexaad waan sooma inta kala dhow dawa aroosina toddobaad ama bilba dhalinyaradii baa imanaysa aqalkii waa lagu caweynayaa waa la iska cayaarayaa muqubadii waa la cunayaa de halkaas arooska reerka reer ku noqonaya ku degaya fijaanku waa dhaqan horta ilaa Soomaalidu waana laba nooc midna dumarka midna ragga leh marka ay hawsh fijaanka dhameystiran bay keeneen markii ay keeneen waan ka gudoonay inanta aniga family-ga ayaan gudoonay ayaa lagu soo kaxaynaya fijaanadii oo la soo xiray ama joog ha ahaado ama dee fijaan ba ha ahaado fijaana yaryar baa la xidhaado wax lagu saabsaday in magaalada ku aragtay in kale mooyaan kuwaas oo muqubad yar la dhaxdhig hadday ku waayaan joog bay soo sameeyeen marka labadeedina inay kimxiska hay aniga ayaa furnay waana ku guulaysan marka ay fijaanka la furayana inanba diyaara walba la diyaartay haddii wax qaladaas ku samaysan fijaanka waxay kugu samaynaysaa ganaax ushay kula dhacaysa amba wax kale kugu ganaxaysa marka adigu waan ku guulaysanay si fiican baan aanu furnay waana laba mashxarad waan ku guulaysano waan lagu mahadnaqay sidaan furnay arooska iyo fijaanku laba maalmood oo kala dambeeya ayay dhacaan arooska marka fijaanka lagu keeno habeenka ma furin kartid habeenka ka dambeeya iyo habeenka saddexaad iyo habeenka afraad
kolba kaad ka dhigatid ayaad furan kartaa oo caado loo leeyahay. anoo hafjaankii sabiibta kolkii horeysay hablaha soo qaaday 2 hablood midna bidxibiga taageerina midib anoo ka dambeeyay way sideen oo galay oo degaan oo furaan daadu wixii ku jira la wada cun la wada arag markii dambe way ciyaareen aduu intii ciyaar kareen markii dambe way iska kala dareereen saas ku dhamaatay dhaqano waxaan la socdaa marka la furo fajaaga ina daarashada iyada la dhadhasiyo marka horeysa oo qof asxaabteeda kamid dhadhasiyo